السلام عليكم كسو dhawaada channelkayga Modern Somali Food maanta videogan idin la wadaagaya waxa uu ku saabsan yahay waxyaabaha aan cuno maalintii holiday ayaan ka soo noqday marka waxaan rabaa inaan hilibka ama miisaanka aan iska rido subaxdii markaan soo tooso meelaha 6 subaxnimo aniga oo quraacan waxaan jecelahay inaan cabitaankan wuxuu ka kooban yahay liin dhanaan black pepper ama filfil sidoo kale waxaan ku daraa apple cider vinegar iyo biyo kulul inta hadii aad cabto calooshaada oo maran waxa ay ka caawinaysaa in miisaankaaga aad dhinto calooshaada oo kalena hadii uu faad ku jiro ama baruur ku jirto inay ka dhacdo ay ka caawinaysaa marka subaxdii markaad soo toosto inta hadii aad cabto waa inaad sugto ugu yaraan nus saaco ama 30 minutes intii aanad quraacanin marka quraacdo kale anigu 2 saacadood kadib meelahaas ayaan quraacdaa 8 ilaa 9 inta u dhaxaysa ayaan badanaa quraacdaa quraacdo kale maanta marka waxaan jeclaystay inaan samaysto porridge wuxuu ka kooban yahay waa caanahan isticmaalaya waa almond milk ama caano loos wax faat ama laha sidoo kale anigu caano loos isticmaalaya hadana wixii aan ku darsaday in yaro biyo ah si aan wixii faat ku jira aan islaha in yaro faat ku jirtaba aan uga sii takhaluso ama aan uga biyo sidoo kale waxaan ku darayaa porridge ama oats inta adiga kugu filan ama hadii aad qof u sameynaysid ama aad in ka badan qof aad u sameynayso adiga ay qiyaasta kugu xiran tahay sidoo kale waxaan ku darsaday chai seed aad ayuu caafimaad kugu fiican yahay badana hadii aad sameysanayso quraacda porridge kale ama cabitaanada waa lagu darsadaa miisaan dhimistana way ka caawinaysaa sidoo kale caafimaadkana wuu fiican tahay porridge-kaygi intaas ayaan ka soo sameeyay markuu ii soo bislaaday imika waxa aan rabaa waxyaabo caafimaadka oo fiican oo kale healthy snacks ay yiraahdaan inaan dusha kaga daro sidoo kale waxa weeyaan walnut-kaas waa nooc kamid ah noocyada looska aad ayuu maskaxda ugu fiican yahay caruurta iyo dadka waaweynba uu fiican yahay insha Allah fiidiyo kale oo kaga hadlay ayaan soo gelinayaa sidoo kale blueberry ayaan ku darayaa waa fruitska noocyada ugu fiican ee macaanka badan lahayn sabiib ayaan ku darsanayaa iyo in yar oo kale oo chai seed marka hore inna waan ku kariyay imika in ayaan dusha kaga darsanayaa sabiibtana waxaan ugu daray maadaama aan wax sonkor ah aanan ku soo darin in yar oo macaan ayaan u baahanahay energy isiisa maadaama hawl badan qabanayo subaxda insha Allah intaas ayuu porridge-kayga ama quraacdeeda ay ahayd hadii aad macaan kala doonaysid inaad ku darsatana waxaad sameyn kartaa in yar oo malab ah ama milqacad malab ayaad ku sii darsanaysaa imika waa waqtigii qadadii waa labadii meelaha ama 2 o'clock in the afternoon qadadii aan sameysanaya waxay ka kooban tahay waxyaabaha aad arkaysaan waxaan doonay inaan sameeyo kalluunka nooca loo yaqaan salmon ovenka ayaan gelin doonaa hadii Ilaahay raahdo wax oo saliid ah oo ku shiilaya ma jirto anigu hadaan diet ku jiro iyo hadii aanan diet ku jirinba badana waxaan jecelahay waxyaabaha ovenka la geliyo waxyaabaha saliidda lagu shiilo ma jecli familkayguna ma jecla marka samankaygi xawaashida insha Allah dusha ayaan qoraalka idin soo saari doonaa ayaan wada marinayaa markaad xawaashka marinaysid kalluunka ama digaaga ama hilibka waxyaabaha ovenka gelinayso oo kale waxa fiican inaad xawaashka si fiican labada dhinac aad uga mariso mudana aad yaradayso si uu xawaashku gunta uga galo marka imika samankayga ayaan diyaarsanayaa ama kalluunkaygi salmonka noocii aan sameynayay aluminium ayaan ku yara laabayaa dushana waxaan ka saarayaa in yar oo kamasara iyo in yar oo liin dhanaan ah waxaan gelinayaa 20 ilaa 30 daqiiqo inta u dhaxaysa ovenka kor iyo hoos aad ku shidaysaa waxaan diyaarsanayaa wixii aan dhinaca kaga cunayay ama aan dhinaca ka saarinayay kalluunkayga kuskus ayaan sameynayaa 4 milqacdood oo kuskusa ayaan imika xaga ku soo shubtay in yar oo biyo ah ayaan dusha kaga shubayaa biyahaas ayaan ku yara deynayaa waxa weeyaan biyo yar kulul waxaan ku yara deynayaa ilaa 10 daqiiqadood waxaan rabaa inuu bisel uu soo yara dhawaado dab kale waa la saaraya laakiin isku dhinaad in yar la 10 ilaa 15 daqiiqo inta u dhaxaysa biyo kulul ku shubta aad yaradayso sida aad arkaysaan waxaan khudaartayda nimka ku shubanayaa waa basal baan ugu horeysiyay pepperoni midabada isku wada jira oo mixed pepperoni ay yiraahdaan ama mixed pepper sidoo kale marka intaas ii yara bislaato waxa aan ku darayaa kuskuskaygi oo half bisel isagu soo noqday markii aan 15 daqiiqadood biyihii kulula ku daayay gooskuntada waxaan diiday inay dab badan gasho aakhirkiina tamaandhadayda ayaan ku darsaday intii dhexe waan ilaabay inaan duubo raali noqdo waan yara mashquulsanaa cuntadeedii finally sidaas ayay soo baxday hadii aad jeceshahay soos ay dusha kaga darsanaysaa hadii aanad sooska jeclayna sideeda ayaad ku cunaysaa
hadhow habeenkii marka ay gaadho intaana seexanin markaan yani cashada waxaad cunaysaa 7 habeenimo ugu dambeyn marka maadaama qadadaydii aan labadii cunay snacks iyo waxa galinkii dambe waxba maan cunin marka cashada markay 7 gaadho ayaan sira casheedana waxa weeyaan beans yar ayaa samaysanaya waa baked beans dadka qaarkood yani siyaabo ka duwan sana u samaystaan qaarkood ayaa bas beansko diyaarka bay kululayaan waxba kuma darsadaan laakiin aan waxaan yara jecelahay inaan basal iyo basbaas yar iyo waxyaabaha ku yara darsado sidoo dhadhan yar oo fiican igu samaysmo filfishana طبعا wax wala cunay filfil ayaan ku darsadaa badana marka qofkii jecel inuu san u samaysto ila soo tijaabi insha Allah feedback-ana ka soo bixi hadii uu dhadhanka aan sidan aad u sameysay uu ku cajabiyo hadii si ka duwan ama qaab ka duwan aad u samaysato anigana ila soo wadaag faa'iido ay tahay inaan idin ka barto way channel-ka dhan baaba cunto karin in la yani fikrada la isdhaafsado oo la kala barto marka in yaro salada ayaan dhinaca ka saartay hal xabo oo mulawaxana waan ku cunayaa daasid intaas ayaa cashadeeduna tahay ma sha Allah tabaaraka raxmaan marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysateen waxyaabaha aan maanta idin soo galiyay waxa weeyaan this is what I eat in a day qaabab ka duwan ama cuntooyin ka duwan oo cunana waan idin soo galin doonaa insha Allah taala last thing aan idin la wadaagaya waxa weeyaan si aan beaniska iskaga gubo faadkiisa waxaan cabayaa green tea intaanan seexanin green tea-guna wuxuu u fiican yahay digestion-kana wuu u fiican yahay muxuu ahay faadka inuu dilo ama uu ka gubana wuu u fiican yahay marka xaqi aad shaah caadi ka cabi lahayd green tea-gaas oo yani biyo kulul iyo green tea-gaas ku dartay ayuu bad cabaysaa yani ma sha Allah aad ayuu kugu fiican yahay caafimaadkaagana aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum ma jiro hoos ruux u geeya amaba hore kuu kaxeeya naftaada adaa hogaansha adaa haya keenadeeda halkaad u jihaysa weeye kun haybood noloshu weeye kun hawlood baa ku xeeran kun bay hakisaa dharaarba kun bay si hagaajisaaye haddaad ku hungowdo kaalin hareer kala soo tijaabi